بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين walaalayaal kusoo dhawaada waxaan rabnaa inaan maanta ka hadalno soomka iyo caafimaadka ama xiriirka ka dhexeeya soomka iyo caafimaadka iyo qofka markuu soomo caafimaadku ka helayo marka waxaan ku bilaabanaa insha allah alcilaaqa ashaamila bayna asiyaam wasixa xiriirka ka dhexeeya soomka iyo caafimaadka intaan horta aan u gelin caafimaadka iyo qofka jirkiisa waxaa la iska bedelaya waxaan rabnaa inaan ku bilowno hordhaca inaan horta fiirino hordhacaas ku saabsan waa maxay caafimaad sida ogtiin horta caafimaadku waa nimcada ugu weyn oo qofku haysto waaye markuu xadiisku uu tilmaamayay nabigaa tilmaamay wuxuu yihi nicmataani maqbuuna fiihimaa kathiiru min annaas asixatu walfaraaq laba nimco dadku way ku kadsoon yihiin ama ma dareensana labada nimcana waxaa waye qofka caafimaadka markuu haysto iyo markuu jaaniska haysto ma dareensana balse waa nimcooyin waaweyn qur-aanku marka laga hadlaya caafimaadka horta ereyga asixa caafimaad si toos uma adeegsan balse erey lamida buu adeegsaday sida fiihi shifaaun linnaas oo markii qur-aanka laga hadlayay oo qofka laabtiisoo kale marka balse wuxuu sidoo kale dejiyey qawaaniinta qofka uu caafimaadka lagu ilaalinayo sida qofka inuu ka fogaado wax kastoo dhibahaya walaa tulquu biyaydiikum ila tahluka iyo qofku maarata inuu markuu wax cunayo kale dhexaad ka dhigto uusan xad dhaafin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin sidoo kale waxyaalaha madaabada caafimaadka ku ilaaliya waxaa ka mid a qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo ilan sida caadiga nadaafadu waxay asaaska qofka caafimaadka in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin wayunazzilu calaykum min assamaa'i maa'an liyudahirakum haddaan agno caafimaadka marka lagu leeyahay asna horta waa qofka markaa lagu qeexay caafimaadka waxaa la state of complete physical mental social emotional and social well-being not mere absence of disease horta waa qofku inuu dhammaystiran yahay maskaxiyan inuu dhammaystiran yahay sidoo kale maanta bulsho ahaan inuu dhammaystiran yahay inuu spiritual wax la yidhahdo ama ruuxiyadda qofka ayadana maxay inuu dhammaystiran yahay intaasaa loo qeexa caafimaadka si kooban waxaa waye qofka inuu dhammaystir ahaan u dhammaystiran yahay maskaxda jirka waxaasoo dhan inuu ka caafimaad qabo iyo qalbiga marka qofka horta caadiga caafimaadka ilaahay siiyey waxyaalo fara badan buu u gooyaa ama waxyaalo fara badan buu ka helayaa qofka ilaahay hadduu caafimaad siiyo kow horta midda koowaad waxaa waaye kartida cibaadada iyo maxay tahay qofka inuu haddii ilaahay caafimaad siiyo dee cibaadada ilaahay ku waajibiyey si wacan buu u gudanayaa sidoo kale qofku wax soo saar buu yeelanayaa wax soo saar fiican buu yeelanayaa oo wax walba adduun iyo aakhiraba wax u soo saaran karaa qof ilaahay caafimaad siiye waaye sidoo kale qofka maskaxdiisu wax kasta oo uu doono diiradday saaraysaa sidoo kale qofka ilaahay caafimaadka siiyey hoos u dhig ama qarashka caafimaadka kale dadka kale oga baxa asagu waa qarashkaas uga bixi maayo maadaama dee dadka waa aragteen xanuunsan maalin walba qarash baa uga baxa marka intaas wuu ku badbaadaya mar hadduu ilaahay caafimaadku siiyo dhibka marka caafimaadka waxaa garan kara qofka ilaahay qofka xanuunsan yahay ama qofkii maarata asagoo xanuunsan yahay garan kara caafimaadka muhiimadiisa sidoo kale qof waxyaala uu ka hela xasilooni nafsiyeed ama farxad qofku farxad buu markas ku noolaanaya mar hadduu caafimaad qabo sidoo kale caafimaadka qofka ilaahay markuu siiyo adeega qoyskiisa iyo bulshadiisa uu ku filan yahay sidoo kale waxyaalaha qofka ilaahay caafimaadka siiyey uu ka faa'iidayo waxaa ka mid inuu gaaro yoolalkiisa ama himilooyinka wax la yidhahdo marka himilooyinka ama yoolalkuna wax kala maa waa qof kaste mar hadduu caafimaad qabo qofkaas waa iska soconaya waa ordahaya wax kastoo uu doono samaysanaya marka ilaahay in lagu shukriyo way qof kastoo caafimaad haysta waa qodobka labaad arki doonno ayadana hordhac intaana arag soomka waxaan rabnaa inaan wax ka dhahno soomka hortay sida ilaahay noo sheegay ayaaman macduudaat waaye waa in la soomo maalmo kooban xikmadda loo dejiyena waxay ku caddahay aayaddii ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun
soom baa laydinku farad yeelay baa layidhi sidii dadkii idinka horreeyey ama ummadihii idinka horreeyey ummadda maxamed ummadii ka horreeyey sidii loogu faryeelo kaa loogu faryeelay sababtuna waa lacalakum tattaquun inaad ilaahay ka cabsataan marka la qeexayeyna soomkana waxaa la yidhaha huwa imsaak can idacaam washaraab wasaa'ir almufadiraat mufdiraat min duluuci alfajri ila ghuruubi shams biniyati tacabudillah qofku inuu macna afhaysto qoraxdu markay soo baxdo ilaa waa maxay ilaa dhacayso qofku inuusan waxba cunin marka soomku waa cibaado ilaahay nidaam u yeelay sidoo kale waa maxay qofku inuu niyeysto loogu talagalay waana nidaam nolosha oo dhan hagaajinaya maqaasidda shareecada marka laga hadlayana waa ku ilaashan tahay oo waa maxay ilaalinta nafta ama xifdu nafsi waa ku jidhaa sidoo kale ilaalinta maskaxda qofku inuu maskaxdiisa ilaaliyo xifdu lcaqli xifdu diin iyo xifdu lmaal ama qof maalkiisu ilaaliyo waxaas dhan waa maqaasidda shareecada way soo saaranaya xifdu nasr qofku inuu ilaaliyo sidoo kale ehelka ama waa maxay nasabka intaasna soomku toos ayuu taabanayaa oo ilaalinta nafta iyo ilaalinta maskaxda akhlaaqda waxaas dhan waa wax loogu talaga waay marka hadda intaan aarin waxaan rabnaayaan qodobka labaad aan ka hadlayna waxaa waaye afraad ama saameynta jireed ee soomka ama medical effect wax la yidhaahdo oo maxaa dhaca hortay marka soomka marka